toban sannadoodba hadda la leeyahay wax baris ma geli wax la cunaa laga ilaalinaya daa hub iyo waxaa ka kaalay bini aadam la yidhi annagaa idiin oodayna idinkuna garaaca dee kuwan oodaya waa muslimiin waa dad iyo dalal islaamiya inay gargaarba siiyaan ka kaalay in la yidhahdo war haddaa wax iska celisaan iska celiya haddii kalena ha laydinku maado war baabay noqon lahayd ee inaad tidhaahdo anna waa kuu qabanayaa adna tun anaa kuu xejinaya iyo dhaqdhaqaaqina adiguna tun dacfigu halkaasu ka maraya muxuu ugu qabanayaa ma jacayl buu yuhuudda u qaba may u baqayaa adigaa buu ku soo gaadhiya kan ku hay ka una tuma buu taaganya yani inta badani waa baqe waxaan leenahay marka furqadu asalku wuxuu ahaa muslimku tara almu'miniina ama mathalu lmu'miniina riwaayadda bukhaariya muslim waxaad arkaysaa mu'miniinta ama tusaalahoodu wuxuu yahay marka la eego naxariistooda iyo isjacaylkooda iyo iscaawintooda iyo isu dabacooda sidii jidh qura oo haddii cudwi xubin ka mida jidhku ay xanuunsato jidhka inta kale uu soo jeed iyo xanuun ugu soo jeedo muslimku miyuu sidaa weegiyay maanta maya mid waliba liwaxdo buu fakeraya keligii bale guriga kugu xiga in lagu dhimanayo in lagu nooliyey ma ogid guriga kugu xiga in gaajo loogu baktinayo in lagu nool yahay inaad ogeyn bay u badan tahay ilaahina qur-aanka wuxuu ku tilmaamay waaطiicu allaha waaطiicu الrasuula walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhaba riixukum wasbiruu ina allaha maca saabiriin war alla iyo rasuulkiisa adeeca war ha murminoo ha isqabanina yaydan daciifin baa la yidhaha alfashalu fi luga huwa dacf waa daciifaysaanoo waa liidanaysaan baa ilaahay leeyahy oo watadhaba riixukum magaciina iyo dowladnimadiina iyo dadnimadiina iyo sharaftiinana waa tegaysaan wasbiruu ina allaha maca saabiriin waa suurtagal waxoogaa xagxagasho iyo dhibi inay dhexdiina ka jiri karto laakiin waxaa la yidhi xal u raadiyo wasbiruu ina allaha maca saabiriin kala guuroo kala yaaca laynama odhanine waa wasbiruu ina allaha maca saabiriin inaynu xal raadinno oo sabirnaabay ahayd nabiguna calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari wuxuu leeyahy laa takhtalifuu faina man kaana qablakum ikhtalafuu fahalakuu waar hooya ha iskhilaafina war kuwa idinka horreeyey way iskhilaafeen dabeetana way halaagsameen baa nebigu tilmaamaya waxay leenahay markaa sababtu sabab khaarijiya maaha maraykan baa caawinaya iyo maraykan keligiiba afghanistan waxba yeeli waayo isagoo 45 ciidana wata 45 dowladood oo kristan u watay qaar muslimiin mooyee dhariya iyo waxay meedhayeen iyana waa la socdeen waa ku jireen qaar dowladaha islaamiga ka mid ah 150 geeyay 150 askari waxay qabanayaan garan maayo waxaan uga dan leeyahay maca maraykan ha ku jiro maca kuwa ka sii dambeeya ha ku jiro ibliisna ha ku jiro maraykan daaye haddii muslimku muslim yahay may dhacdeen waxa hadda dhacaya doo muslimku muslim dhaba yahay waxa dhacaya ma dhaceen walidalik adiibkii masriga ah ee alcaqaad la odhan jiray ayaa ixda kutubihi wuxuu leeyahay maqaal weerd la yidhaahdo كثيرا ما يكون الباطل أهلا للهزيمة ولكنه لا يجد من هو أهل للانتصار عليه بيري إن بدن بالله أركابو يري باطلك إنه مدن يهي أموي يهي وح لتشمين كره إيه وحن بولا يهي بولا عدي مدنيدين يقول يسته يعني باطل حكم لها بولا وح اللواي عدي يضم مدنيد إن يقول يسن كرتا ما يشك بحضي qodobka afraad aan tilmaamaya waxa weeyaan ee uu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam alwahm xub dunya wa karahiyat almowt dadku nadaradooda inay adduunka ku soo koobaan waa kii sheekhu hadda ka hadlaya maqaasidda jihaadku dee inay ka mid tahay shahaado iyo janno raadin iyo meel kale oo aan ahayn uunu intan adduunka xisaabtanku inaanu ahayn laakiin dadku markay aragtidoodu maslaxo shakhsiya iyo adduunka maxaan dheefayaa iyo geeri ka carar iyo xoolo raadin ay noqoto waa kii xadiidka nabigu ku tilmaamaya yuushaku lumamu an tadaaca calaykum kama tadaaca alakalatu ilaa qascatiha waxay u dhowday buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam in ummaduhu isugu kin yeedhaan sida kuwa sabta lihi casuumadda wada lihi ay isugu yeedhaan xeedhada inay wadaagaan sida cunnada loo wadaago in laydiin wadaago
والتعبير runtii aad u cajiib ah bini aadam nool in lagu sifeeyo cunno la wadaagaya inay noqdaan nabi maxamed wuxuu ku tilmaamayaa sida cunnada in laydiin wadaago oo xeedhada la isugu yeedho in la isugu yeedhaa baa dhici doonta saxaabadii markay ka yaabeen waxay yidhaahdeen oo ma yaraan baa ilaahay rasuulkiisiiyo waxay is yidhaahdeen un dee malaa intaad dadka ka yaraataan ayuunbaa dunidu idin boobi doontaa wuxuu nabigu ku yidhi bal antum yowmaydin kasiir may maalintaa waa badantiin laakiin daad xor baa tihin baa la yidhi xumbadan daadku markuu kaxeeyo dusha ka saaran taas baa tihin xumbadu wasni ma leh miisaan ma leh itijaahu ma socoto biyuhu kolba surankay ka laabmaan unbay u samaysnaa shakligeedu waa biyuhu hadba siduu yahay laan kasta oo biyaha soo gashaa qayb bay la hadhaa yacni wax qiimo ku fadhiya maaha noocaasoo kalea noqonaysaa buu nebigu leeyahy walayanzicanna allahu min suduuri caduwikum almahaabata minkum wala yaqdifanna fii quluubikum alwahn qalbiyadiinnana nimanka gaaleed qalbigoodana inay idinka cabsadaanba waa laga saari doonaa dee muslimka ma cid dunida ka cabsataa imika jirtaa waxaa lagu arki doonaa biyo la cabeeyo kale inaad la mid tahay adiga qalbigaagana wahni baa lagu tuuri waxay yidhahdeen ilaahay rasuulkiisiiyo wahniguuni waa maxay af carabi way yaqaaneen laakiin waxay garan lahaayeen waxaan ummad dhan fadhiisinaya wuxuu yahay ilaahay rasuulkiisiiyo wahnigu waa maxay bay yidhahdeen nebigu wuxuu ku yidhi xubu dunya wa karaahiyatu lmowt waa adduun jacayl iyo geeri ka carar nin geeri ka cararay guul haleeli maayo dee guul waxaa ka sokaysa dee mashaakil iyo dhib iyo haddaad cabsidu ku gasho waxba ma jiraan maadaama qodobo badan baynu fasiri karnaa laakiin waxaan rabaa inaan iskaga soo koobo muslimku maanta intiisa badani waa aasantay qaar baa isku dayaya inay madaxa la soo baxaan oo bidaartu muuqataa laakiin iyana weli gumaatiisu may taagin waxaan leenahay tiro ma tiro yara ma dhul yara bale dhul istraatiijiya waxay yidhahdaan badaha dunida cinta kantaroosha ayaa dunida ka talisa ma lix bay sheegaan kanaal mise 5 kanaal baa dunida ku yaalla mid mooyaane inta kale caalamulislaami buu gacantiisa ku jira hurmus iyo suways iyo kuwana uu haysto turkiga iyo marka la isku daro banama oo quran gacantooda ku jirin waxaa dunida kanaal isku xidha shidaalka dunidu intay joogaan buu yaallaa tirada dhallinyarada dunida ugu badan intay joogaan bay joogtaa dad wada waa kana way hor fadhidaane waxay ralayni kuma jiro Soomaa waa dunida muslimka oo dhan waa dhallinyarada laakiin waxaanaynu sheegaynaa maqan qiyaadadii raashidka ahayd ee dadkan hogaamin lahayd mabda'ii xaqiiqiga ahaa ee khayaaliga ahayd ee ummaddani qaadan lahayd midnimadii dhabta ahayd ee ummadda muslimiintii si uun iyo qaab uun ay u midoobi kari lahaayeen aakhiro iyo janno raadintii dhabta ahayd ay ka bixi lahaayeen minnidan sokeeya waxaan aan jirinee la raadinayo waxaynu odhan karnaa uun maadaama wakhtigu uu wakhti dambe yahay hadalkan aan rabo inaan soo koobo tafsiilka waa tiro badin karnaa laakiin waxaasoo tafsiile waxaan ku koobayaa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diin haddaynu diinta garanno waynu garanaynaa saynu wax isaga celinno iyo saynu wax u maamulno iyo saynu cilmi u baranno iyo saynu dayaxataa iyo meelaha ka fog u aadno waan garanaynaa laakiin waxaa ka horraysa inaynu dad noqonno muslima haddii taa lagu guulaysto waa guulaysanaynaa waxaan cilmaaniyiintu inoo sheegtay kambaa dhiman iyo kambaa dhiman war waxaan oo dhami diintay ku jiraan taarikhyahanada qaar baa waxay idhaahdaan persia iyo romaniski waxay yidhaahdaan xawaalay 1000 sannadood in ku dhadhow bay isdilayeen qaar baa waxay sheegaan ilaa 700 oo dagaal inay galeen may isriixin waxay yidhahdaan muslimiintu qolana 15 bay la galeen qolana 9 bay la galeen 24 dagaal bay taariikhda dunida kaga saareen ragga ka saaraya waa raggii hawdka ka yimi ee aan dawlad hore aqoonin carabi maxay ku faani jireen quraysh waxay odhan jirtay waxaanu nahay qabiila luqax waxa weeyaan dadaan weligoodba loo talin dad madax bannaan baanu ahaynoo dhulka iskaga nool marka waxaan ku soo koobayaa
saxaaba waxay xadaarad iyo taariikh iyo ummad ku sameeyeen oo ka gedisan umamku bay dhahaan boqolaal sano ay dhismaan laakiin tii saxaabadu bay dhahdaan aqsar waqti dunida wax la dhiseen waqtigii ugu koobnaa waayo dadkii ugu qumanaaya diintan qaatay ahaayeen kuwii ka dambeeyey hadba jiilkii inuun roonaadee qaatay waxbay iska dhiciyeen weligoodna lama gumaysanin jiilkii ka tegayna ama mogool ha jiidho ama crusaders ha jiidhaan ama kuwan maanta cid haysataba aan la garanayn ee dunida kuwada dullaysan ha ahaadaan waxoo dhan markaad isku darto waa dacfi gudaheenna ka jira cadow baa xoog batay taariikhda marnaba war may ahayn mar walba dunida ninka is haysaan dee wuu fakerayo wuu tashanayay laakiin dadka maanta intay ooyaan cadaaladda ka raadinaya united nation ee ka raadinaya cadaaladda yurub ee ka raadinaya ninka is hayeen inuu cadaalad sameeyo ma inuu naxariisto sidaa marnaba guul laguma helo inteennan caawa halkan fadhidana ilaahun baan gaalka inugu itixaaminay daynaba caawa maynan hooyanayn ilaa tabarka lama haynayn mashaakilku wuxuu yahay war hoy diinta ha loo noqdo آخرية أدنب ولا كل سنة والسلام عليكم ورحمة الله. بشارو هذه سفر لو قل جري برشاد قرآنك حتى waxaad ku baranaysaa quraanka iyo culumta shariicada adigoo oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ee barashada quraanka kariimka iyo shariicada islaamka duruusta oo sida taxanaha u dhigo waxa kamid ah barashada quraanka kariimka ah iyo higaada culumta shariicada islaamka tarbiyada أولادة iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ogaad wixii faahfaahin kala xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka barashada quraanka kariimka iyo culumta shariicada ee Daarul Hijra